wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa soo gaadhay magaalo ganacsiyeedka degmadaasi Togwa Jaale. Wafdigan ayaa markii ay soo gaadheen gudaha degmada Togwa Jaale waxay kulan ballaaran oo albaabadu u xidhan yihiin la qaateen maamulka dawladda hoose ee degmada Togwa Jaale iyo laamaha amniga ee degmadaasi. Intaasi kadib markii uu kulanka isxog waraysiga uu soo dhamaaday waxa si wada jira warbaahinta ula hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland gudoomiyaha degmada Togwa Jaale iyagoo faahfaahin ka bixiyay kulankan isxog waraysiga waxaana kamid ah hadaladoodii degmada idinka warramo aad iyo aad buu roobku ugu daaweyna barwaaqaysan tahay nabadgelyadu waa boqolkiiba alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahayna waxaan baryaynaa ilaahay inuu saacidiyo idinkuna indhihiina waad ku arkaysin inuu dhulku iska barwaaqayahay sanadkan maanta ana aad iyo aad baan ugu rajo weynahay inay beero inoo baxaan oo aynu ka maarana xataa waxyaabaha dibadda laga keeni jiray ummaddan waxaan ku dhiirigelinaynaa war waxyaabaha dibadda laga keenay maanta hadday xabad yar halkaa ka dhacdo bil baynu ku bakteena saa daraaddeed waa in hadhuudhada la qodo oo beeraha la falo oo nin walba bohosha wax ku shubto haddii kalese maalintay wax dhacaan nin walba inta yare bakhaarka ku jirto wuu xidhan waxaad cuntidna heli maysid saa daraaddeed dadku inta roobka ka faa'iidaystaan oo dhibic kastoo roobka ka dhacda laga faa'iidaystaan leenahay anaga waxaan u soconay hawl shaqo kormeer ah oo inaan soo kormeeray bal degmada iyo gobolka Gibeahaanba si xaaladiisu yihiin aan uga warhayno ama ha noqoto xagga amniga xagga roobabka xagga kulay meeshana waxay ku taalaa meel xada oo iska xasaasiya kulay markaa in laga warhayo markastoo la soo eego xaaladiisu ay tahay aad bay ugu baahan tahay ku fiican tahay insha Allah kormeerkan waan joogtay doonaa aan ugu imanayno hadii la yiraahdo waxa kale oo jira saa uu sheegay gudoomiyuhuba xaqii beerashada imika waan soo maray beero dhulkan soo eegnay si fiican bay wax u baxayaan insha Allah roobka barwaaqo roobka daay awgeed ayaa inoo soo saaray wax fiican insha Allah waxaan ilaahay rajaynaynaa inuu inooga dhigo mid inaafaco wax inoo tara kulay maamulka degmadana oo la sii dardaarmayna hadii la yiraahdo intaan joogno Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga Somali News TV magaal ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale.